salaamullaahi calaykum asxaabta sharafta badan ku soo dhowaada kanaalkeena wax ka baro. maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aad u qiimo badan, mowduuc xiiso badan, mowduuc aad wada sugayseen. ciwaanka mowduucaasi wuxuu noqon doonaa kaabayaasha xiriirka jaceylka. ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta. kolka aad rabto in aad abuurto geed, waa in aad hesho dhulkii aad ku abuuri lahayd. mar labaad, waa in aad diyaarsato oodii aad kaga weedaari lahayd misena kaga ilaalin lahayd noolaha waxyeeli kara. waa in aad u banayso meel ay ka soo geli karaan falaalaha qoraxdu. sidoo kale ciddii ka warhayn lahayd iyana waa qodob meesha ku jira. tabtaa waxaa ka dhigan jaceylka. jaceylku waa dareen laba qalbi si wada jir ah u beertaan. wuxa uu leeyahay wax koriya oo kobciya iyo wax wiiqa awooddiisa korimeed. qodobka koowaad, kalsoonida. kalsoonidu waxa ay ka mid tahay qodobada ugu tunka weyn ee jaceylka labada qof ku taagan yahay. kalsoonidu waxa ay xiriirku labada qof ugu jirtaa halka udubka iyo dhigtu ugu jiraan aqalka. balday hal abuurkani siduu inagu sawiray. aasaaska guurkiyo waxaa aqal adkeeyo udubada u taaga ogow waa kalsoonide iyo cunuga caashaqa. mar kale hal abuurkani isna wuxuu inoo tilmaamayaa kalsoonida oo la waayaa in ay wiiqi karto xiriirka kalgacal ee labada ruux dhex yaal. balday hadduu gabo kaalintiisa, kalsoonida haddii la waayo ma koro caashiqo runtiie ka baaji inuu nusqaamo. kalsoonida ka sokow ballanta, is-aaminaada, dareen qaybsiga, kalgacal iyo si naxariis isu muujinta waa waxyaabaha ugu mudan ee uu ku taagan yahay xiriirka labada qof dhex yaal. kusoo dhowaada maanse yar oo ku saabsan xiriirka labada qof dhex yaal. laba weelka caashaqa ku wadaaga meel qura, laba aan wad mooyee wacadkooda burin karin oo kalsooni waafiya. wegeertay keligood ayaa wehel isdiirsada, weligood ahaadee wacdaraha jacayl dhaba. waxaa dhiigga kuwii hela wadne laba dareen sida, mid hadduu weeraro wiiqaynin ayaamuhu ka kalena weerar bada. qodobka labaad, naxariista, kalgacalka iyo ixtiraamidda. ma jirto wuxuu uu bani aadamka ka jecel yahay hadalka dibacsan ee naxariista iyo kalgacalku ku lalan yahay. kolka ee noloshu lamaane joogtana iyadu way kasii xag jirtaa. bal qiyaas qofkaada oo aad dareen ahaan u tidhaahdo adiga horta cid kale ma jeclaan, haddaba lafteedana qorshaha iguma jirto cid aan adigu ahayn jecelkeedu. suugaantan yar bal ila dhegayso. horta ruux kale ma jaman, ma jiro oo mana jeclaan, jidhkeegiyay ma odhan, haddana kuma taala jirow, jacayl aan adigu ahayn ifkaba lama joogi karo. waxaa la sheegaa nin carabeed oo muujinaya xaaskiisa jacaylku u hayo in laga hayay uu yidhi, haddii aan xabiibti lahaan lahaa kun qalbi, kun jeer ayaan adigu ku jeclaan lahaa. waa dareen muujinaya wehelkaaga in aad waxba kaga hagran. hadduu kun ahaan lahaa qalbiga ka hawshida, adaan keligaa runtii kalgacayl aan kala go-ayn xubbi kuu huri lahaa. naxariista iyo kalgacalka ka sokow u samafalka iyo caawinta wehelka noloshaadu waa mid waajib diini ah. garab istaagidda iyo dhiirigelinta haweenadu waa astaan ka mid ah sifooyinka lagu garto nin rageedka geesiga ah, oo si aftahano u dheehan tahay inoogu tilmaamay waatuu lahaa, wehelkayga noloshaay kolku wacadka diintiyo xaqa waalidiintiyo waxay eebbe laga tago, wax kastoo la jecel yaho admiga la qaro weyn adigaa kasii wacan, adigana wad mooyee weligay intaan jiro waxaa igu wallaahi ah in aan ku wanaag falo. waa dareen aad u xildheer oo tilmaamaya jaceyl lala godgalay. waa dib u dhalasho labaad oo jaceyl. ifku waa liskala tegay balday hal abuurkan. dhowr jeer haddaan marka aan dhintaba dib u dhalan lahaa, dhulka waxaa ku nool adduun baan dhabtii dhaayaha ishqigu ugu dheehan lahaa.